waad mahadsantihiin horta baxda VOA. waxaa weeye anagu haddaan nahay baxda makhaayadaha Arthur Daily ee gobolka Minnesota waxaan nidhi sidee baad uga qaybgeli kartiin dhibka soo gaaray dadka macniisheeda ahaa ee dowladda u shaqaynayay muddo bil gaaraysa bilaamishaha ka ahaa sidee baad u caawin kartiin. marka waxay nala noqotay waxaa qolalkan ku caawin karo inaan maalintii aan siino hal nafar oo maxaan kula cuntaa oo waqtiga qadada ah maadaama dadkan ku shaqaynayaan bilaamishaha. waan gartay marka waa dhammaan waa bilaash ama waa lacag la-aan halka nafar aad siinaysaan oo saa tilmaantay qadada ku beegan. sax waa sidaas weeyaan waa muddo 4 saaca. muddo 4 saacadood marka waqti gaaray bilaabmaysaa waqti gaarana way dhammaanaysaa. sax 12 subaxnimo ilaa 3 saac galabnimo waa waqtiga dadku shaqeeyaan ay qadeeyaan. marka cabdiraxmaan haddaynu eegno dee shaqaalaha dawladdu ma yara way badan yihiin dabcan hadda waynu garan karnaa bulshada dee ku nool deegaanka tusaale ahaan oo kale meheradahu ku yaalla inaad ku shaqaynaysaan sidee dadkii u kala soocaysaan ama aad u kala garanaysaan idii imanaya in qofkan qof shaqaale dawladeeda yahay iyo yahay qof caadiyo iska soo qaban doonta ama meesha yimi. horta dadku waxay u badan yihiin dad markaygii horeba iska ahaa macaamiisheeda marka ay yimaadaanna laazim qofka waxaa la weydiinayaa baajkiisa amba sharciga dawladda uu shaqeeyo ee u gaarka ah maxaan ku raacay maniga qaybta uu ka shaqeeyo dawladda. marka waa la ogyahay dawladda qaybaha aan qaadanayn maxaan ku raacay mushaharkana waa la iska yaqaanaa waxaan rajaynaynaa dad niyadooda fiican tahay inay maxaan ku noqdaan. marka de makhaayadda hore u shaqaynaysay oo dee dabcan de meherada caadi u shaqaynaya ahaydeen ma cunto gaar aad u diyaariseen mise cuntooyinkiina caadiga ahaayee awal baad bixin jirteen umaad ka siinaysaan oo qofku isagu u dalbanaya oo dooqiisa u ciyaaraya. may qofku wuxuu dalbanayaa wuxuu rabo wuxuu cuni jiray ikhtiyaarka isaga kale wuxuu maxaan ku dalbanayo oo laakiinse xuduud ay ku jirto. maxay tahay markaa xuduuddaa ku jirta cabdiraxmaan? dee qofku markuu maxaan ku raaa waqtiga uu shaqaynayo qadadu cuno waa la yaqaanaa amba dee waxaa la yidhaahdaa entry amba sandwich ayuu qofku cunaa. marka intii awal buu cuni jiray oo qiyaasan ayuu qaadanayaa wax kasta iskuma wada qaadan karo. waan gartay ilaa hadda shaqaale intee leeg baa makhaayadahaaga soo booqday amaba idii yimi oo aad u adeegteen oo adeegan bilaashkaa siiseen? horta shalay waqtigii qadada ayaan cilaaminay marka ilaa shalay waxay yimid ilaa 12 qof marka la isku daro laakiinse maanta ayay maxaan ku bilaabmaysaa maadaama ay midiyihii iyo social mediahii aada looga baahiyey marka hadee kolley diyaar baan nahay. marka idinku waa u diyaar garowdeen oo inay idin yimaadaan shaqaalihii. waan gartay haddaynu dhinaca kale eegno waxaad carabaatay in go-aankaa qaadateen haddaad tihiin bahda makhaayadaha marka ama go-aan guud oo makhaayadaha aad wada qaadateen baa mise waa mid adiga gaar kugu kooban? may markaan leeyahay waa aniga iyo shaqaalahayga laakiinse waxaan rabnaa inaan ku baraarujino makhaayadaha kale ee ka jira gobolka amba maraykanka ka jira in ay iyakuna taasi mid lamida ay maxaan ku qaataan waa baraarujin amba mataqaanaa dhiirigelin aan u samaynano dadka kale ee maxaan ku makhaayadaha leh. markaas sida aada la socotidba waxaa ku jira dad badan oo soomaaliya dad badan oo muslima ayaa iyakuna ay saameysay maxaan ku arrintaasi. haddaan si kale ku weydiiyo de dabcan waynu ka warqabnaa maraykanka oo kale dee marka meherad ama makhaayadba ha noqoto ama wax kale ha noqotee ay shaqaynayso korontadii ama laydhkii ku socdo adeegyadii kale ku socdaan ay shaqaalihii saacada lacag ku qaadanayaan soo adeegayso haddana adeegii bilaash ku bixinayso maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad go-aankan qaadato ama aad u bareedho? horta midaasi waa midda u dambaysaan eegano laakiinse midda ugu weyn ee muhiimadda ugu weyn waxa weye dad macmiishaada ahaa oo dhibaataysan amba mataqaana dug soo gaadhay inaad ka caawisid waxay ku jirtaa bini-aadamnimaday ku jirtaa. ta labaad adnaku waxaan nahay dad maxaan ku immigrant oo khashaafada xumaantu ay hayso inaan xagga wanaagana tusno oon kala dagaalsano dadka mataqaana dagaalka lagu hayo aan niraahno waxaan nahay dad wanaagsan dad fiican oo markaa dadka maraykanka dib soo gaadho damqan karaa. taasina waa message kale. arrinta kale ee cuntooyinka kama dhigna de inay dadkoo dhan wada bilaashooda imanayaan
waa boqolkiiba annaga haddaad gobolkayga dadka ay saameynayso boqolkiiba 2 ama 3 wax ka yar weeyaan intii ka badnaydna maxaa soo imanayaan marka waxaa kale jira dadka oo qalbigooda fiican yahay markay arkaan makhaayad kicisa sameynaysa iyagoo awal aan ku iman jirin xitaa ku imanaya oo customer-ka ay si badnaa dhinacna haddaad eegtid xagga marketing-kana way u fiican tahay xagga samaacadana way u fiican tahay marka waxyaabo badan ayaan eeganaa oo